dagaal ay adag tahay inay fahmaan muslimiinta ayaa dhan walba ka socdo. waxyaabaha aadka ii dhibay arika ahaan waxaa ka mid ah filimada aan daawano kuwaasoo muslimiinta fariin ahaan loogu diro caalamka. hindida iyo reer galbeedka waxay nagu hayaan dagaalkiisa ugu foosho xumaa, sidoo kalena lagu sumcad dilayo muslimiinta. waxaan la yaabay maxay u isticmaalaan magacyadan cabdul khaan, samiir khaan iyo magacyada khaan hindida. sidoo kale hollywoodka iyagana waxay soo saaraan filimaan kuwaasoo ay ku jirayaan wax dhacay ama waxaan dhicin, laakiin maxaa sababay inay adeegsadaan magaca muxamed iyo magacyo kale oo muslimiinta ay leeyihiin? maxay u dooran waayeen magacyo kale? sababtaasi ayaan isweydiiyaa. iyo kuwa ku jilayo qaabka askareed bollywoodka iyo hollywoodka maxay inta badan u soo gudbiyaan askari hindi ah ama maraykan ah kaasoo ka naxayo gabar muslimad ah, sida iyadoo la kufsan rabo ama la dili rabo ama u dhimanayo darteeda. qaabkaasi ayay ku muujiyaan wax ku saabsan insaaniyadda. laakiin maxay ciraaq ka geysteen ciidamadii maraykanka ahaa ee gale ciraaq, afghanistan, kufsi, dilwadareyd, kuwii ugu foosho xumaa 2003 maraykanka markii ay galeen ciraaq waxaa ku dhimatay 100,000 oo qof. hindida iyagana waxay ka geysteen dil, dhac, kufsi, assaam iyo kashmiir, masaajida muslimiinta oo la gubo, barakicin. waxayna filimada ku muujiyaan insaaniyad ay soo saareen laakiin aan ahayn midda saxda ah oo ay ku soo gudbiyaan muuqaalada ay jilaan. maxaa sababay nin muslim ah oo dukanayo inuu agtiisa maro nin kale oo muslim ah, halka askariga hindiga uu leeyahay qofkaani waa muslim, salaada ha dhammaysto oo ma ag maraayo? sidee ayay u muujiyeen iyagoo hindiya ku gumaaday muslimiin aad u badan, masaajida muslimiinta gubay, aadaanka diiday, xijaabka diiday? maxay u keeni waayeen filimaan loogu hiilinayo muslimiinta? masaajidaasi muslimiinta cidda gubayso, naceebka lagu hayo muslimiinta, xisbiyada mayalka adag ee ka jira hindiya maxay ugu sameyn waayeen filimaan? musalsalka ay soo saareen shirkadda Marvel sanadkii 2022 mid ka mid ah waxaa waday jilaayad u dhashatay dalka Pakistan, waana musalsalka Mrs Marvel. Kamala Khan inay tahay geysiyadii ugu horeysay ee muslimad ah ee ku biirta Marvel Studio, waxayna ka soo muuqatay musalsalka Mrs Marvel. sida ay ku jilayso filimkan, gabadhan waxay ka dhalatay qoys muslim ah oo Pakistani ah oo ku nool Maraykanka. Kamala Khan waxay jeclaanaysaa waxa loogu yeero superhero, ehelkeedana waxay u diidayaan in habeenkii ay aado xafladaha, kadibna waxay ka tegaysaa guriga waxayna aadaysaa xaflad, waxayna jeclaanaysaa qof aysan isku diin ahayn. sidoo kale filimkan waxaa xooga lagu saaraya xorriyadda dumarka. qaybta koowaad musalsalkan wax dhibaato ah ma lahan, laakiin qaybta labaad ihaano ama waxaa lagu soo muujinayaa ihaano loo geysanayo muslimiinta. waxay dhex fadhiyaan masjidka, khudbad ayay dhegaysanayaan dadka masjidka ku jira, haddana isla kuwa ku jira masjidka oo iska isticmaalaya telefoon. waxaa la leeyahay snapchat ku isticmaalin masjidka, iyadana waxay leedahay waa Instagram. maxay tahay fariintan iyo in muuqaal noocan ah ay baahiyaan? waxyaabaha kaa yaabinayo ee ku jira musalsalka Mrs Marvel waxaa ka mid ah Kamala Khan ayaa saaxiibadeeda ku leh masjidka waa wasakh aan nadiifin. wax kale ma waayin oo ay filimkan ku soo daraan. maxay u doorteen wasakhda masjidka inay ku soo qaataan? waxay u hadlayaan in diinteena ay naga jecel yihiin. waa fariin kale oo muujinayso dagaalka ay nagula jiraan reer galbeedka. waxaa iga yaabiyey oo aan ku dhex arkay musalsalka Mrs Marvel markii ay soo aadaan qaybta kabaha ee masjidka. Kamala Khan saaxiibadeeda ayaa leh kabahayga ayaa la xaday. waxay leedahay gabadha 22 mar ay sidan oo kale u dhacday in kabaha la iga xado. fariin kale oo toognimo ah miyay waayeen oo ay ku soo dhex daraan musalsalka? waa dagaal lagula jiro diinta islaamka, waxayna ka dhigayaan in masaajidka sidan oo kale kabaha mar walba lagu xado. haddii aad u fiirsato filimada reer galbeedka ay soo saaraan ma arkaysid iyagoo wax xumaan ah ka faafinayo kaniisadda. waxayna ku muujiyaan kaniisadda inay nadiif tahay, toogana aysan lahayn. dagaalka intaasi kaliya kuma eko. kani waa musalsalka Family Guy ee kartoonka ah. xalqada magaceeda waa Santa Killed by Muslim. Stevie ayaa leh aabo ma muslimiinta ayaa dilin Santa, oo maxaa iska galay Santa iyo muslimiinta? fariintan ayaa u muuqata muslimiinta waa dad dila dadka, waalidiintana ka warhayaan awlaadooda. kartoonada ay daawadaan waxaa ku jiraan fariimo leh khataro aad u weyn. isla Family Guy, Preachy Joe Cleveland waxay aadayaan dhanka baska u qaada dadka airportka, laakiin baska inta aysan korin wuu qarxaya. waxaana ka soo degaya baska nin leh gar, kaasuu iyaga ku dhahayo wuu wanaagsanaa codka, aadna wuu dheeraa. qofka ka soo degay waxay ka dhigayaan nin muslim ah kaasoo ku faraxsan qaraxa dhacay. kartoonka Rick and Morty kaasoo la rabay in loogu gafo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. shakhsi ayaa hees qaadayo isagoo dhahayo nabiyullaahi ciisa calayhi salaam, wuxuuna sii racsiinayaa Muhammad, laakiin markuu ku dhawaaqayo ereygan way wada qoslayaan dhammaantooda. maxay ula jeedaan? sababta keentayna maxay tahay?
waxaan leeyahay waajmalu minka lam tara qattu cayni waaxsanu minka lam talid الnisaa'u khuliqta mubara'an min kulli caybin kaannaka qad khuliqta kamaa tashaa'u qof adiga kaa qurux badan isheeda weligeed ma arag qof adiga kaa wanaagsanna hooyo ma dhalin waxaa lagu abuuray adigoo saafi ka ah ceeb walbo waxaana la moodaa in lagu abuuray sidaad rabtay rasuulkii allah waan ku jecelnahay simbison qaybo ka mid ah musalsalkan majaari ayaa waxay leedahay waxaan filayaa in aanan jirin cid miiskan joogto oo run sheegayso mid wax u qarsoon ayuu soo bixinayaa midna waxaanan u qarsoonayn ayuu dib u qarinayaa laakiin simbison wuxuu wataa buug ama kitaab uu ku qoran yahay qur'aan wuuna qarinayaa arrintaas oo aan aad ula yaabay qaybta commentiska ku soo qora maxay ula jeedaan Family Guy qaybo ka mid ah musalsalkan waxay ku soo darayaan meel ka mid ah saxaraha Afghanistan waxaana hadal jeedinaya Osama bin Laden laakiin Ramadaan ayuu ku jeesjeesayaa qofka matalaya Osama eray ahaan am qaab aan wanaagsaneyn ayuu u leeyahay Ramadaan muslimiinta bisha Ramadaan aad ay u jecel yihiin waana bishii uu soo degtay quraanka waxayna ogyihiin in aan jecelnahay bisha Ramadaan maxaa sababay diinta kaliya ama dadka adduunka ku nool inay ka arkaan kaliya muslimiinta reer galbeedka daawada adiga maxaad isleedahay sidaan way u sameynayaan muuqaalkeen halkaas ayuu ku egyahay